السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وهم علي فؤاد محمد عبدي وألقى إذا كسر شيئين زنا مادة علم بالشدة فصل كل حاد عطب كشناد عشر كيسة صدحاد يوان كيسونا ويهي كقاعدة شدة حل مسؤولية دي وحياوها قرحاء مركي الله كونتو مررك قاركود واحد عضا إنسي كديس لولا كلمة miino ama waxyaabaha qaraxa ee ku aasan dhulka dhexdiisa ku aasan taasi oo haddii markaa loo dhawaado ama la taataabto sababi kartaa qarax keenina kartaa dhimasho dhaawac iyo khasaaro badan markaa haddii aad si kidis ah ula kulanto waxyaaba aanad hore u arki jirin ama waxyaaba kugu cusub taasi oo ah shay aanad hore u arag in aanad u dhawaanin marka koowaad haddii markaa loo dhawaado ama la taataabto waxay sababi kartaa qarax markay qaraxdana dhibaato ayay keeni kartaa ay ka midka yihiin dhimasho inay dad ku dhintaan inay dad ku dhaawacmaan iyo sidoo kale in ay markaa keento khasaare kale oo fara badan oo maal iyo hantiba leh markaa waxyaabahaasi waxa soo saara daadadka ama meelaha ay markaa dhismayaasha ay ka socdaan iyo sidoo kale meelaha markaa la qodo ama markaa meelaha markaa jeexjeexyada ah ama la jeexjeexo ayaa badanaa lagu arkaa oo ay kasoo baxaan waxaana u sababa soo bixitaankooda daadadka dhismayaasha iyo markaa meelaha markaa la qodo iyo hoos loo qodo jeexjeexyada ayaa u sababa inay soo baxaan markaa sidoo kale waxyaabahaas waxa ay markaa kaga tegay dalka waxa kaga tegay ama dalka waxa keenay oo kaga tegay taliskii ciidamadii siyaad barre ee dalka markaa laga xoreeyay kaasi oo ku aasay meelaha muhiimka ah iyo wadooyinka ah miinooyinkaas iyo waxyaabahaas qarxa ku aasay oo kaga tegay waxaa sidoo kale dhici karta in aad markaa la kulanto hub dayacan sida qori ama bastoolad taasi oo haddii aad la taataabto ama aad taabato sababi kartaa khatar sababi karta haddii aad la kulanto wax aanad hore u arag ama markaa miino meel iska taala ama qori liiska yaala ama baskoolad sida sawirkeeda ka muuqata markaa magaranaysa aad la kulanto in aanad taataaban oo aanad u dhawaanin haddii aad taabatana ama aad u dhawaatana ay ka dhalan karto in ay sameeyaan qarax ay sameeyaan qaraxaasina markaa uu keeno dhimasho dhaawac khasaare maal iyo hanti intaba le markaa haddaba adigoo marka aad la kulanto waxyaabaha qarxa waajibaad iyo xil markaa mas-uuliyad ayaa lagaga baahan yahay oo inaad ka qaadato oo aad doorkaaga markaas muwaadinnimo aad ka ciyaarto ama kaalintaada aad ka qaadato hababka markaa ugu fiican ee looga qaadan karo xil mas-uuliyadeed waxaa ka mid ah marka aad la kulanto waxyaabaha qarxa hababka xil mas-uuliyadeed aad uga qaadan karto waxaa ka mid ah in aan markaa loo dhawaan waxyaabaha qarxa waxyaabihii qarxayay ee aad aragtay ee kugu cusbaa in aanad u dhawaanin markaa oo aad markaas ka fogaato sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha aad xilka markaa mas-uuliyadeed aad kaga qaadan karto in la wargeliyo dadka ka ag dhow si aanay u dhibaataynin ama dhibaato aanay usoo gaarsiin inta aad booliska markaa aad ogeysiinayso dadka ka ag dhow waa in aad markaa iyagana usii sheegtaa si ay uga sii feejignaadaan oo uga sii digtoonaadaan qodobka markaas saddexaad ee aad markaa xil mas-uuliyadeed kaga qaadan karto waxa weeyaan waxyaabaha qarxa markaad la kulanto in aad markaa ka fogaato goobahaas lagu arkay waxyaabahaas aan kor kusoo xusnay ee ay ka mid yihiin miinadu qoriga baaskooladu ay ka midka yihiin markaa intaas waxay noogu dhammaaday markaa casharkeenii fasalka 6aad ee ciwaankiisu ahaa ka qaadashada xilka mas-uuliyadeed walxaha qarxa marka aad la kulanto taasi oo markaas waxyaabo fara badan oo walxaha qarxa ka mid ah
habkii aad markaa uga digtoonaan lahayd adigoo naftaada aad uga badbaadin lahayd, habkii aad uga badbaadin lahayd nafaha kale ee markaa dadka markaa dadweynaha markaa caamka aad uga badbaadin lahayd ama bulshadaadaba aad uga badbaadin lahayd in adiga lagaga baahan yahay markaa. hababkaas oo ay markaa ay ugu fiican yihiin ama markaa ay ugu muhiimsan yihiin ama hababka markaa ma garanaysay kaalinta koowaad ama ma garanaysay dee ka ciyaari kara walxaha qarxa marka aad la kulanto ay ka midka yihiin in aanad markaa adigu u dhawaan wixii qarxayay ee aad markaa la kulantay. sidoo kale in aad dadka ka agdhowna aad markaa wargeliso inta aanad markaa booliska usoo sheegin. waxaa laga yaabaa in haddii aad ka tagto aad xagga booliska u cararto in ay dhacdo dad kale inay meeshii soo maraan waxyaabihii markaa qarxayay ay taataabtaan ku ciyaaran kadibna halkaa dhibaato ka keento. sidoo kale in aad markaa ka fogaato goobahaas waxyaabahaas lagu arkay markaa si aad uga badbaadiso naftaada uga badbaadiso nafaha dadka kalena aad uga badbaadiso. intaas ayaan kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum.